Welcome to 3029 Brickell Avenue, the home of Gunther VI. Tani waa qisada eeyga ugu taajirsan caalamka, magaciisuna caan ka noqday dunida oo dhan, laguna magacaabo Gunther VI oo lagu qiyaasay hantidiisa inay gaadho 900 milyan oo dollarka Mareykanka, waxaana uu ku nool yahay waddanka Mareykanka, gaar ahaan magaalada Miami. Gunther VI ayaa hantidan ku helay dhaxaltooyo uu ka dhaxlay Gunther III oo ahaa awowgii oo isna eey ahaa. Gunther III oo ahaa awowga laga dhaxlay hantida 900 milyan ayaa isna ku helay hantidan awalkii hore dhaxaltooyo uu ka dhaxlay halqabeennada caan ahayd oo lagu magacaabi jiray Carlotta Liebenstein oo dhimatay sanadii 1992. Kadib dhimashadeeda ka hor, Carlotta waxa ay hantideeda u dardaarantay Gunther III oo ahaa eeyga kaliya ee ay haysatay kadib markii aanay jirin wax aqaarib ah ama family ah oo ay ku magacowdo hantidaasi. Gunther VI oo ah eeyga hadda nool, haystana lacagta lagu qiyaasay 900 milyan, ayaa ku nool qasri ay hore u degganayd fanaanad caan ka ahayd meelo badan oo ka mid ah Yurub iyo Ameerika, laguna magacaabi jiray Madonna Louise Second oo asal ahaan u dhalatay waddanka Mareykanka. Qasriga waxa uu ku yaalaa koonfurta Florida ee isla waddanka Mareykanka. Madonna oo ahayd fanaanada hore u lahayd qasriga uu ku nooleeyay hantiile Gunther VI ayaa ku iibisay gurigeeda qasriga ah lacag dhan 7.5 milyan, halka hadda lagu qiyaasay inuu yahay qiimaha qasrigaasi 32 milyan oo dollarka Mareykanka ah, noqonaysana 3 laab lacagtii ay ku iibisay fanaanadii Madonna. Qasriga eeyga uu ku nool yahay ayaa ka kooban 9 qol oo hurdo ah iyo sidoo kale 8 musqulood. Waxa uu sidoo kale leeyahay hantiile Gunther VI 4 diyaaradood oo u qaasa, 3 doomood oo nooca safarka ah, gawaadhi aad u tiro badan. Goobaha dabaasha ayaan ka maqnayn qasriga mulkiilaha uu ka yahay eeyga lagu magacaabo Gunther VI. Qasrigan ayaa lagu qiyaasaa bad ahaan inuu ku fadhiyo 51,000 oo mitir square oo qiyaasta dhulka ah. Madonna oo ahayd fanaanadii hore u lahayd qasriga ayaa ku soo daabacday boggeeda Twitter-ka in wax laga xumaada ay tahay qasrigii ay iibisay maanta inuu marayo 3 jibaar lacagtii ay hore u siisay, weliba kaaga sii darana uu ay iibinayo. sidoo kale hantiile Gunther VI waxa uu leeyahay shaqaale u qaasa isaga, sidoo kale ciidan tiro badan oo ilaaliya ammaankiisa, iyadoo loola dhaqmo maalqabeennada adduunka. Waxaa sidoo kale la sheegay inay jiraan shirkado badan oo ku kala yaala qaybo ka mid ah Yurub iyo Ameerika oo lagu magacaabo Gunther Group oo mulkiile ka yahay eeyga taajirka ee lagu magacaabo Gunther VI. haddaba daawade waxaa isweydiin mudan, kadib geerida Gunther VI yaa dhaxli doona hantida faraha badan ee 900 milyan ee dollarka Mareykanka ah. 100 sano kadib, dunida ma waxaa ku soo kordhi doona boqortooyo ay leeyihiin eeyda adduunku.